dilo maxaa keenay qofkani inuu aqbalay in dhagax lagu dilo yani wax xukumaya noloshiisa jira sida awgeed ayaa waxaan leenahay noloshii saxaabadu markii hore dhul gaalood bay deganaayeen makay joogeen iyo meel la mid ah xataa markay madiina tageen hore intii hore oo dhan madiina yuhuud baa deganayd oo mushrikiin kala deganayd oo munaafiqiin baa joogay oo bulsho isku dhex jirta bay ahayd wax walba leh haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam waasican diiniga ee iimaaniga ee akhlaaqiga ah buu xoogga saaray inuu dhiso sida awgeed baa qur-aanka waxa soo hordegay waasica waxa dhisaya aayaadka ilaahay iyo kelinimadiisa iyo weynidiisa iyo raxmadiisa ka warramaya aayaadka aakhiro iyo ciqaabta iyo jannada iyo naarta iyo siraadka iyo wixii la mida ka warramaya qur-aanka ugu badanee makiga ahi masaa'ilka caqadigaabuu ka warramaa qur-aanka madanigihina kama madhna ma min aaya ilaa iyo sifa min sifaati qur-aanka haddaad bayjajkiisa saa u rogto ma min safxa ilaa iyo aakhiro wax ku saabsan ama rabbi wax ku saabsan baa ku yaalla yani iimaankaa la dhisayay walidalik baa maanta dunidu waxay u taag la'dahay inay samayso nebi maxamed kelmad buu ku sameeyey ilaahay uu ku soo dejiyey u fiirso dadka badh baa waxay moodayaan hadda leeyihin waa jahliga haddii technologyga iyo aqoonta iyo waxaanay bataan waar aqoontu waa ta dadkaba dunida gumaysay kuwii aqoonta lahaa wax joojiye markay waayeen ayay cidday doonaan dileen oo cidday doonaan boobeen oo cidday doonaan gumaysteen oo cidday doonaan jizye ka qaadeen oo si kasta u gumaysteen dunida ma cid aan aqoon lahayn baa wax gumaysataa idan waa scholar bay ku odhanayaan scholarkuba waa ka baabiiyey dunida nimankan nuclearka dunida ku garaacay miyaanay scholars ahayn ma baadiyay ka yimaadeen they are the scholars waa kuwii jaamacaadka iyo khubarada ahaa ee dunida gacanta maanta intooda badan ugu jirto marka basharka awooddiisa la eego ayaa almufsiduuna fi lard kuwa dhulka fasahaadiyey waayo waasicii joojin lahaabaa maqan suldo ka sarraysa ay ogyihiin oo ay ka baabanayaan ma jirto bulshadoodu waa materialist oo waxan bay ku raacsiisan tahay waasic diiniyana ma jiro waasic diiniyana ma jiro marka dad badan baa waxay leeyihiin haddii dowladnimo muslimi dhalan lahayd wax badan ba nacam wax badan bay qaban lahayd laakiin waxa ka horreeya dad muslimi inuu dhasho waxa ka horreeya dadku inuu islaamkooda iltizaamo waxa ka horreeya inay caqiidadani qalbiga degto oo si dhaba u degto sida awgeed waxa kugu filan in badan baynu ka warrannay ama meelo badan baan ku tilmaamnay xaadithadii taariikhiga la tilmaamay gaalka maraykan uu sameeyey gaalka maraykan baa wuxuu qaatay go'aan ah khamrigu inuu xun yahay khamrigu inuu xun yahay cilmiyan waa loo baadhay wuu xun yahay cultural iyo dhaqanka iyo social iyo bulshada wuxuu ku sameeyay waxaan oo dhan wuu xun yahay dabeetana ummaddaa la weydiiyey war wuxuu ma xun yahay haa bay yidhaahdeen waxaa la isku raacay dadkoo dhammi dowladda baarlamaanadeeda madaxweynaha iyo istiftaa shacbiya bulshada istiftaa laga qaaday waxaa la isku raacay in khabrada la joojiyo waddanka maraykan distoorkiisu ku daray waa amendment yani distoorkooda waxay qorteen markii ay xorriyadda qaadanayeen amendments waxa la yidhahdo ay ka dabageeyaan baa jira amendmentka 17aad mise 18aad weeyaan amendmentkani wuxuu sheegayaa in waddanka maraykan ay isku raaceen iyo dadkiisa iyo dowladdiisa iyo wax oo dhammi khamrigu inuu mamnuuc yahay maraykanka marka waa federal statesko dhammi way ku qasban yihiin weliba waxaa la yidhi dadkana jaanis sannadaha la siiyo 1919 baa go'aanka la qaatay waxaa la yidhi 1920 buu hirgeli doonaa qaanuunkaas sanadkaasna wacyigelin iyo ninkii warshad khamriya haystay inuu wax kale ku bedelan karo ninkii ka baac mushtarayn kara inuu shaqo kala furan in dadka la siiyo bal jaanis ay ku guuri karaan hal sano dhowr iyo 10 sano kadibna isla distoorka laftiisii baa amendment kale lagu qoray
oo la leeyahay khamrigu wuu iska bannaan yahay statesku iyagu go'aamo hoosaata ka qaataan laakiin dawladda federaalkii waxay la hadhay hadduu intaa cabista dhiiggiisa uu ku jiraayo intaasoo miligram leeg yahay inaanu gaadhi wadi karinun taasunbaa dawladda sare ah ama wixii kale laga yeelayo statesku ha qaataan stateskuna si kolba loo fasaxay waa ogtiin maanta khamrigu wuxuu ka yahay khamriga ma cilma ka soo kordhay may 200 qof in ka badan baa lagu dilay bay yidhaahdaan malaayiin min albooks baa la qoray oo waxaa laga hadlayo silbaska waddankaa lagu daray si wacyigelin loo sameeyo min dugsi hoose ilaa jaamacad baa lagu dhigi jiray khamriga iyo xumihiisa jaraa'idka iyo tv waxay dawladu leedoo dhan baa lagu isticmaalay dawladdii dunida u xoog weynayd waxay tidhi waanu u taag weynay mar haddii loo taag waayay see la yeelaya ha la ogolaado waana halka uu maanta ku socdo draguna ma foga iminka waxaa bilaabmay in la yidhaahdo xashiishadda caafimaad ahaan waa loo cabbi karaa waddannada qaarkood waxaa bilaabmay waddannada qaarkood in la yidhaahdo meelo gaaraa lagu cabbi karaa waxaa bilaabmay waddannada qaarkood in la yidhaahdo light ta fudud baa la cabbi karaa waxaa bilaabmay waddannada qaarkood waa la beeran karaa oo liisan unbaad u qaadanaysaa waxaa bilaabmay waddannada qaarkood waa la iibin karaa laakiin bishar berrina waxaad arki doontaa uun sidii khamriguba yeelay iyadoo xashiishaduna la mid ah khamri xashiishad sigaar qaad qurun oo dhammi wuu soconayaa sababtuna waa maxay qaanuunkii baa xadayn kari waayey sultadii baa u taag weyday laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaah baa aayad qur'aana ku soo dejiye oo ku yidhi يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوه بالليل كدير هذا دبتنا وكدير هذا لكن وقورمة شن يطبن سنضاد بو خمر وحلالها مسلمين تدحدود العبي صدح يطبن سنو مكان لتشوقي يلا بس سنو مدينة لتشوقي شن يطبن كاس سنضاد خمر والعبي laakiin dadkan caqiidadoodii iyo iimaankooda la dhisayay markay xad soo gaadheenna askar looma dalban station police looma dhisin maxkamada la soo taagan lama samaynin waxa la yidhi khamrigu maanta laga bilaabo waa xaaraan fanaada munaadi mid dhawaaqa magaalada ka dhex dhawaaqo yidhi wardadow quraan baa soo degay le khamrigu waa mamnuuc kuwii cabbayey koobkay gacanta ku hayeen bay qubeen wixii weel ku jirayna waa la daadiyey bale weelashii baa la dumiyey waa kuwan fuqahada qaar ka mida daliishada khamriga markay leeyihiin armaanu nijaas ahayn wadooyinkaa lagu qubay bay yidhaahdaan khamri tiro badan baa waddada lagu qubay waddadana waa tii la yidhi imadatu lcana can ariiq mar haddii lagu qubay armaanu nijaaso sheegaynin xadkaasay gaadhay yani waxaan tira badnidiisa meesha lagu qubayey in ragga badhay sidaaba u daliishadaan أنا مسألة فقهان وما بحية كما هضليه لكن وحن تلمامية وحل الدادية يسدوا بدنا يمقالة إن طريق يدو خمرنا وضين ما حاجة شيء بين لنا وحاجة شيء وازع الدين جاه وقفكي إنه الله كحشود الديدة إلهي إنه أركي يكوقا عواية عبسده إلهي قلبي يصدق ويده عيدنا ما مامول كرته عيدنا وما تاكشوا إذن علمي بقى حماضي كم باعين كيالي وحن باعين كيالي مشكلة دواطن هدين وازع ديني كو قوليسن وحوالي بوينو حقاقيا هدين سكو قوليسن وينو وأذكتي نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كوسنة كيس إمام العراقي وكتل بامي حسن كوحيدي إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعدا من نفسه يأمره وينهاه قفدو إلهي خير لدونه نفتي سا واعد لوغا السمايا مدوانية أو وحفرة أو حمها كالريبة نبي نوح لمن يريد الله به خيرا يفقه في الدين وعن رجينا يا وقت جينو دماضي 40 waan dhamaystay 49 baan bilaabay haddana waa على كل diintu waa inaanay macrifo u noqon laba shay baa kala jira
shaygu inuu diin noqdo iyo inuu thaqaafa noqdo, information inuu noqdo macluumaadaad helaysaa iyo inay transformation kugu samayso, inaad noqonayso badso macluumaadkaa taqaano iyo in waxaad taqaanaa noloshaada ay wax ka beddelayso. مثلا إلهي القرآن كوحكو تلمامية قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. قال هذا ويدي بالي يا وحرزاقه يا مقلكين يا أرقين يا دقيهن هنطه يا وحنول واحد انتي كسوسارة واحد انتين وحنول كسوسارة ومن يدبر الأمر وريا وحماموله فسيقولون الله بإلهي وحيكو أوران دونان الله فقل أفلا تتقون بإلهي وحتكو تداهدا وهذا محرب بيوقع بسويدين معناه ما يشكو ترى محيي وريو معلومات إنه information يو نقول transformation هيدو كسمايو وان قرنا يا إنه إلهي الدنيا ما عملوا يسوقوا له عين كله أنا واحد دونان سمينا يا وحويا ومعرفان وحبطرين إذا دينتو معها نصوص بدن aad garanayso diinta waxaad ku dhaqanto waqtiyadan dambe waxaad moodaa macluumaadkeenu inuu badan yihiin laakiin waaqicina ma ka muuqata